geeska Afrika wuxuu galay dagaal taariikhda galay laba dal, hal dhul, hal qowmiyad oo kala qaybsan. ciidankii Soomaaliyeed waxay galeen dagaal ay rumaysanayeen inuu yahay dib u xirayntii Soomaali galbeed, laakiin dagaalkaas wuxuu noqday mid bedelay mustaqbalka Soomaaliya. dagaalkii 77 Soomaaliya waxay gashay dagaalkii ugu weynaa ee waddan ay ku qaado, waxayna la gashay waddanka Itoobiya. kadib gumaysigii dhulal badan oo Soomaaliya degto waxaa loo kala qaybiyay dalal kala duwan. gobolka Ogaadeniya ama Soomaali galbeed waxaa gacanta ku hayay waddanka Itoobiya. dhowr toddobaad gudahood ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay qabsadeen magaalooyin badan sida Jigjiga, Goday iyo deegaano kale oo fara badan, waxayna galeen gacanta Soomaaliya. guutadeenna tobnaad ka timid Beledweyne waxaan la aadsiiyey meesha la yiraahdo waxaan naloo cayin meesha la yiraahdo Qabdaare aan xurayno xilli dambe oo la sugan ma jirto hore loo markii isla galabtii waa la dhaqaaqay 6 markay waa loo dhaqaaqay Qabdaare loo dhaqaaqay marka Qabdaare waxaa ka mara bariga tugliira faafan togaas markii laga gudbo magaalada markii lagu dhawaado laami ayaa haddana bariga ka maraasan oo burburay laami buur waay marka waa buur dheer yahay meesha kor u saaray laami marka toga marka soo dhawaanay laba taangiya waxay ka dhaceen maaragtay meel yaroo toga qarkiis ka dhaceen oo bacaad ay galeen ciidankii kolonada socoto dagaalku socoto waa la joojiyay marka waa la istaajiyay markii la istaajiyay waxaa yimaday abraar geed la yiraa oo wiishila ah nala socdo oo ka bixiya dal yaro isagoo dhan aan gaarin 40 sano oo 15 sano ugu dambeeyay la tababaray saasoo isku nahay waa weyn yar iyo nin weyn oo dagaalama camal baa isku ahayn marka baragtii loo tiro aqoon dhinac walba laakiin way muujisay Soomaalidu way muujisay hubku dadka waa dilaan markasta laakiin qofka gacanta ku haya siduu yahay raganimada asagu ilaahay siiyey iyo dadnimada uu leeyahay baan sugayno intii baan sugayno shaunka dhowre alla magane maantay adduunku wuxuu la yaabay awoodda ciidanka Soomaaliyeed. ciidanka Soomaaliya waxay gaareen guulo waaweyn. waxaa la sheegay ku dhawaad in 90% Soomaali galbeed ay gacanta u gashay aarka Soomaaliyeed. waxay muujiyeen geesinimo aan inaba caadi ahayn. dhalinyaro badan waxay naftooda u huleen calanka dadka iyo dalka iyo shacabka Soomaaliyeed. laakiin dagaalka waxa uu galay wejigii ugu adkaa midowgii Suufiye oo markii hore taageersanaa Soomaaliya wuxuu dhinac ka istaagay Itoobiya. waxaa loo diray hubab culus, diyaarado, kumandoosyo casri ah oo cuban. miisaanka dagaalka wuxuu si tartiib ugu leexday Itoobiya. 1978 ciidanka Soomaaliya waxay bilaabeen dib u gurasho. dagaalkii waxay ay kuryoonayeen guusha wuxuu isu bedelay dhaawac qaran. kumanaan askari ayaa dhintay, qoysas badan ayaa barakacay. dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan Soomaaliya waxay gashay marxalad aad iyo aad u adag. aman hadda dhulkii gacanta kuma hayno laakiin hal goob oo ciidanka Soomaaliya wada adkaada ma jirto. meel la dhihi karo meesha la waataan ku jabteen oo kasoo baxdeen ma jirto. ciidanka Soomaaliya u joogay dowladda waa tiri kasoo baxa laakiin ciidanka kama soo saarin. laakiin maxaa haysan weyn dhulkii waxaan haysan weyn waxyaalo badan oo markaas dowladda fulisay dagaalku u isbedelay. anaga Itoobiya waa ka baxay moogta dagaalka anaga Itoobiya ka baxay waxaa soo galay waarso dhan baa soo gashay dagaalka Soomaaliya waba wax dhigi karta marka waarso moogta عقلي إنه وش غير الرواب موقته. مركور كمان أنا فكر إنه مركور سيدا مركور أكون مغلي ويستر إنك بلن قاضي إن التاجر وكذا كبحين كبحتان كتوه كان أنا كذي جاي نقول إثيوبيا عايش أنت صاحب وإذا مكانه
hawtay kubaanku waxay keeneen noo soo dhowr iyo 30 kun oo ciidan ah ma islada arrimaha ugu saaxiibsanayn waxaa ka mid ah cadan yamanta ka mid ah oo isdhaldhalnay oo maqlayso yaman baa joogtay meesha ka dagaalamaysa bulgaria germany waxayna taasi ugu dambeyn u horseeday burburkii dowladii dhexe ee uu hogaaminayay Jaalle Maxamed Siyaad Barre. laakiin maanta dagaalkaas waxaa lagu xasuustaa geesinimo, wadaniyad iyo halgan Soomaaliyeed. 1977 maahayn keliya dagaal, wuxuu ahaa riyo qaran iyo taariikh aan la iloobi karin. magacyada askartii ku dhimatay weli waxaa lagu xusaa qalbiyada shacabka Soomaaliyeed. taariikhda mar walba way noolaanaysaa. haddii aad ka heshay dokumentarigan, subscribe sar channelka si aan u soo barino